xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka oo cid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay dhaliil adag u soo jeediyay siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo jeeda gobolka Awdal sidoo kalena waxa uu ka hadlay miisaaniyadda sanadda 2019 uu sheegay in galdaloolooyin badan ay ka muuqdaan miisaaniyaddaasi wuxuuna sidoo kale dhaliil kala duwan u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo golihiisa wasiirada waxaan ku bilaabayaa hadalkayga waxaan ahay nin waayaha adduun wax uga muuqdaane wax iiguma soo dego haddana wax ima seegaan nin wadiifad haysta hadduu wadi aqoon waayo maalintuu jecel yahay laga wareejaa waxa maanta xukuumadda kulmiye ayuu toos u taabanayaa oo uu ah in ay ku guuldaraysteen hoggaamintii dalkan sanadkii labaad baa u bilaabmay waa sanadka 2018 maanta ugu dambaysa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa xukuumaddani ay la kowsatay oo lagu wareejiyey dal mida iyo dad mida galdaloolooyin badan baa ka muuqda xuduudihii dalku lahaa sidaa ka warhays ugu calaalanaynaa xukuumaddan in aanay gobollada sida maanta gobolkan aan joogo oo kale Awdal $12,000 deyr ah oo deyr dabdamisa ayaa miisaaniyadda ugu jira runtii waa nasiib darro meeday lacagtii ummadda meeday qorshihii gobolku lahaa meekii qaranku lahaa qorsha yaalay 5 sanadooda maanta waxa ay markay ugu yaraato 3 milyan 4 milyan oo dollar sidoo madaxweynuhu inoo sheegay xabad been hadalkayga kuma jirto wuxuu miisaaniyadda hore la inoogu sheegay 30% waxaynu u qaadanaynaa horumarinta dalka ayaynu u qaadanaynaa meeday halkay ka muuqataa halkee ay galeen 9 milyan oo dollar sanadkii aynu soo dhaafnay miisaaniyaddii dalka way soo baxday wuxuu wasiir Sacad inoo sheegay inay dhimantay 10%. waa 3 milyan oo dollar iyaduna ma dhimanane waa taa dekada aan ka hadlayo iyo taa airportka lagu kireeyay oo ay ahayd inay ku cadaato mar walba miisaaniyad hay inoo sheegaan haday meel gaara ama cid gaara ay ku dhacdo way looga leeyahay miisaaniyadda dalka xisaab celinteedana waanu ka doonaynaa ummadana xaqeeda iyo hantideeda iyo waa sheegay inaanay ugu jirin miisaaniyadda $12,000 mooyaane waa sanadkii labaad ayay galaysaa xukuumaddu mee mas'uuliyiintii gobolku mee xildhibaanadii gobolku waxa uu gobolkani leeyahay 30 xildhibaan marka la isku daro baarlamaanka iyo guurtida mee wasiiradii mee madaxweyne ku-xigeenkii maalin walba oo Boorama imaado waxa la weydiiyaa xafii guri baad iibisay aan waxba ma iibin xukuumaddii ku hargeysay iibinaysay ee ka madaxweyne ku-xigeenku ku jiro iminka uu ku jiro lahayd ayuunbaa kana lahaydoo in fooq loogu dhisaabay ahayd lahan runtii nasiib darro ah oo aan maalin kasta Boorama imaado aad ula yaaba sheelkii maalintii aan waday inuu halkii isku taago ilaa maanta taagan yahay mee raggan iswaawaaxaya ee mararka qaarkood leh ee reer sheeganaya wixii ummadda ka dhaxeeyay maxay u baadi dooni waayeen reer Boorame waxa ka dhaxeeya iyo reer Somaliland inay doonaan ideen xukuumaddan markii la doortay ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku bilaabay fartayda ersayadayay ayay idin oran doontaan halkii ummaddu ay ka sugaysay mahadnaqay ka sugaysay runtii waa arkaysaan miisaaniyadda dowladda la ansixiyay waxa ka muuqata galdaloolooyin aad iyo aad u fara badan oo aanu ku tilmaami karno khiyaamo qaran waxa kamid ah lacagtii dekada berbere lagu kireeyay inay ummadda u caddaataabay ahayd inay buugga ku jirtaabay ahayd miisaaniyadda ama odoroska miisaaniyadda inay ku jirtaabay ahayd oo waliba ay ku caddaato intii dekada lagu kireeyay iyo intii ka soo baxday inta aynu ka filayno inay miisaaniyadda ku caddaato waxaan runtii aad iyo aad taa ugu dhaliilayaa
doctor sacad cali shire ayaan aad iyo aad ugu dhaliilayaa madaarka berbera waa la kireeyey maxaa ummadda Soomaaliland loogu bedelay meeday lacagteedii waa maqlayseen madaxweyne ku-xigeenku inuu tagay berbera waa sanadkan gudihiisa inuu yidhi 2 bilood gudahood ayay idin arki doontaan iyadoo shubkii iyo birtu ay wada socdaan oo dhismay bilaabmay mise waxaan halayso haysanaa aan dub idin xusuusinaya BBC-da Axmed Saciidiga markuu ka hadlayay aragnaahe buu yidhi aragnaahe bay taagan tahay xukuumadda maanta jirta waxaanu leenahay waa idin arkaysaa ummaddu waana idinka xishoonaysaa ummaddu way gaari doontaa yoolkeeda hase yeeshee waxaan qabnaa inay ku guuldaraysatay xukuumadda kulmiye inay ku guuldaraysatay hogaamintii dalkan hadday tahay halka ugu sarraysa iyo hadday tahay ilaa degmada ilaa tuulada waa la tabayaa meeday xukuumaddii baanu leenahay xukuumad maanta guul sheegan kartaa oo ka jirta dalkan maanta ma jirta baanu leenahay caddaymaheediina waanu haynaa wixii waanu tilmaamaynaa waxay xaq u leeyihiin waxa naga reeban inaanu ka been abuuro maalin dhaweyd waa maqlayseen berbera dad masaakiin oo guryo la kireeyey ka cabanaya waxaan ku odhan lahaa wasiirka hawlaha guud wasiir berbera 100% baan ka ahaa dakhliga bil walba waan la socday $120,000 baa dawladda uga soo bixi jiray hangarada maanta ragga ganacsadayaashii gacanta ku haystaan aan mid kaliya gacantii dawladda ku soo in kuwa la soo celiyo in la soo celiyo ugu dambayna wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa ugu baaqay inuu iscasilo waa sida uu hadalka u dhigay Sacad ujeedada loo keenay in laga dhigo wasiirka maaliyadda waxaan sheegayaa lagu qarinayaa waa inuu iscasilaa baan ka codsan lahaa